asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal meel walbaad ku sugantii kusoo dhowaada janalkeenna Hogan 24 Media waa anigoo Cabdulle Macalin Maalto. magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar waxaa soo baxaya sanadka 2022 muuqaalo xiiso leh oo isugu jira garoomo, wadooyin iyo dhismooyin aad u qurux badan. tan iyo markii ay dalka Qatar ay ku guuleysteen martigelinta koobka kubadda cagta adduunka waxaa isa soo tarayay muuqaalo xiiso leh ee ka imaanaya dalkan yar. qarni ka hor 1922 dalka yar ee Khaliijka oo ay ku nool yihiin 3 milyan isla markaana dhulka uu ku fadhiyo uu dhan yahay 12,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran wuxuu ahaa dhul lama degaan ah. sidoo kalena waxay dalka Qatar dadka dega ay ahaayeen kalluumaysato iyo reer guuraa ka yimid saxaraha fog ee badda Carabta. dad yar oo da'doodu ay 90 jir tahay ayaa maanta xusuusan kara duruufihii dhaqaale ee adkaa ee ay ku noolaayeen sanadihii 1930 ilaa 40meeyadii. waxayna dadka dalka Qatar ku nool ay shaqo u raadsan jireen meelo kale sida Jabaan. qarnigaas Qatar waxay lumisay ilaa 30% dadkeedii ka tagay si ay fursado dibadda u raadsadaan. 10 sano kadibna 1950 waxaa ku noolaa dad aan ka badnayn 24,000 sida ay sheegtay qaramada midoobay. laakiin waqtigaas dhaqaalaha Qatar waxa uu ku jiray xilli isbeddel uu ku socday. waxay heshay wax lagu tilmaamo mucjiso taas oo ahayd markii la helay keedka shidaal ee ugu weyn adduunka. hadda Qatar waxa ay leedahay dhismayaal dhaadheer iyo kuwo waaweyn oo aad u qurux badan, jasiirado macmal ah iyo garoomo kubadda cagta oo casri ah. balse intaanan u gudagelin barnaamijkeenna like saar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan, sheer leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale. hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keenna, sidoo kalena subscribe dheh YouTube channelkeenna, gambaleelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelinno. mahadsanid. haddaba halkan waxaan idinkula wadaagaynaa 3 isbeddel oo horumarka Qatar qayb weyn ka qaatay. aynu ku bilowno midka koowaad ee helitaanka shidaalka ayaa qayb weyn ka ahaa horumarka dalka Qatar. Qatar markii ay heshay dahabkeeda madow waa shidaalkee weli ma aysan noqon qaran madax bannaan, waxayna ku jirtay gacantii Ingiriiska oo qabsaday dhulkaas sanadii 1916. sahan dhowr sano qaatay kadib kaydkii ugu horeeyay ee shidaal ayaa laga helay gobolka Dukhaan 1939 oo ku taal xeebta galbeed ee dalka oo 80 kiiloomitir u jirta magaalada Dooxa. waxayna dowladda Qatar soo jiidatay warshadaha caalamka halka maalgashadayaasha ay bilaabeen inay yimaadaan Qatar halkaasi oo koriinka dalka uu ka bilaabmay. sanadkii 1950 Qatar waxaa deganaa in ka yar 25,000, laakiin 1970 waxaa ku noolaa in ka badan 100,000 oo qofood. sidoo kale wadankii dadkiisu ay ku tiirsanaayeen kalluumaysiga 1970 waa Qatare waxaa u bilaabmay inuu kabco wax soo saarka guud oo gaaray in ka badan 300 milyan oo doolarka Mareykanka ah. sanad kadibna Qatar ayaa lagu dhawaaqay inay tahay waddan madax bannaan kadib markii ay isaga baxeen Ingiriiska. waa cusub ayaa u bariyay kaasi oo isna la yimid hal abuur labaad oo dalkan qani ka dhigay. helitaanka gaaska dabiiciga ah ayaa ah midka labaad ee dhaqaalaha dalkani qaybta weyn ka qaatay. intii lagu guda jiray sahanka 1971 injineeradu waxay heleen keed gaas ah oo ku yaal dhanka waqooyi ee xeebta Qatar. shirkadda Qatar Gas oo soo saarta gaaska dabiiciga ah ee adduunka ayaa ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee gacan ka geystay kobaca dhaqaalaha Qatar. laakiinse si la mid ah shidaalka faa'iidada weyn ee iibka gaaska ayaa si tartiib ah u kordhaysay tan iyo xilligaasi. kacaankii 1995 ka dhacay boqortooyada ayaa isna ah midka saddexaad ee ka qayb qaatay kobaca dhaqaale ee waddanka Qatar. kobaca dhaqaale ee Qatar wuxuu kor u kacay bilowgii qarnigii 21aad intii u dhaxaysay 2003 iyo 2004. wax soo saarka guud ee gudaha wuxuu sare u kacay 3.7% ilaa iyo 19.2%. 2 sano kadib 2006 dhaqaaluhu wuxuu kor u kacay 6.2%.
kobaca dhaqaalaha waxaa saldhig u ahaa xasiloonida qatar sannadihii lasoo dhaafay. dib u habeyntan dhaqaale waxay dhacday kadib markii xamiid bin khaliifa athaani oo ahaa aabbaha amiirka hadda haya talada ee tamiim bin xamid athaani uu xukunka la wareegay sannadii 1995, taas oo dadka qatar u ahayd dhacdo adag sababtoo ah sida ay u dhacday. wax soo saarka guud ee dalka qatar wuxuu ahaa 61,276 sanadka 2020. haddii aan sidoo kale eegno taariikhda awoodda wax iibsiga waxa uu gaaray 93,521 sida uu sheegay Bangiga Adduunka, taasi oo ah heerka ugu sarreeya adduunka. intaa waxaa dheer dalka qatar ayaa bixiya mushaar sare iyo sidoo kale dalka oo leh waxbarasho wanaagsan iyo nidaam caafimaad oo aad u horumarsan. caqabadaha dhaqaalaha ee la soo darsay qatar si kastaba ha ahaatee, kobaca wanaagsan ee dhaqaalaha qatar ayaa waxaa la soo gudboonaaday caqabado sannadihii u dambeeyey. waxaa sidoo kale ka mid ah caqabadaha ay la kulmi doonto mustaqbalka arrinta tamarta shidaalka oo laga digay saamaynta ay keentay, gaar ahaan saamaynta ay ku leedahay isbeddelka cimilada. waxaa intaa dheer cunaqabataynta ay qatar ku soo rogeen intii u dhaxaysay sannadihii 2017 iyo 2020 dowladaha Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar kadib xurguf diblomaasiyadeed oo dhex martay. cunaqabatayntaasi waxa ay bannaanka soo dhigtay awoodda iyo adkeysiga dhaqaalaha waddanka qatar. dhaqaalaha qatar ayaa iminka muuqda kadib markii ay in ka badan 220 bilyan oo dollar oo ay ku maalgelisay koobka kubadda cagta adduunka oo iminka ka socda dalkaasi. waana lacagtii ugu badneed ee ku baxda koobka adduunka tan iyo markii la bilaabay, waxaana lacagta loo isticmaalay dhismayaasha 8 garoon iyo garoon diyaaradeed iyo weliba wadooyin iyo goobo kale oo aad u qurux badan. su'aalaha ay dad badan oo caalamka ah isweydiinayaan ayaa waxaa ka mid ah sida loo soo agaasimay ciyaaraha iyadoo ay jiraan cabashooyin ka imaanaya hay-adaha xuquuqul insaanka oo ku aadan xaaladda shaqaalaha ku howlan dhismaha oo intooda badan ay ka yimaadeen dalal ay ka mid yihiin Nepal, India iyo Bangladesh. waxaa sidoo kale jira eedeymo ay u soo jeedinayaan waddamo ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Jarmalka iyo waddamo kale kuwaas oo u ololeynayo xuquuqda jinsiga, balse dowladda qatar ayaa diiday calaamadahaas muujinaya qowmuluudka, taas oo ay u diiday inay waddankooda la soo galaan. sidoo kalena xiriirka kubadda cagta ee FIFA ayaa ku raacday go'aanka dowladda qatar, waxayna soo saartay amar ah in ciyaaryahankii garoonka dhexdiisa la soo gala calaamadda qowmuluudka la siin doono calaamadda jaallaha ah. marka laga soo tago eedeymahaas, waxaa cad in ay tani ay ka badan tahay koobka adduunka ee dal yar oo waqti yar gudahood qani ku noqday, haatanna doonayo inuu muujiyo kaalintiisa ah inuu yahay juqraafi ahaan dal muhiim ah oo horumarsan. koobka ka socda waddanka qatar ayaa haatan ku socdo sidii ugu xamaasadda badneed uguna quruxda badneed, welibana waxaa u sii dheer dalka qatar inuu noqday waddankii ugu horreeyey ee qur-aan ku fura koobka adduunka. waana taariikh u qaas ah waddanka qatar oo ah waddankii islaamiga ugu horreeyey ee koobka adduunka martigeliya tan iyo bilowgii koobka adduunka. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo ah idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabduuli Macallim Alto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.